maxamed aan markan ku bilowno falaaqaynta gudaha Israa'iil inkastoo markii hore Netanyahu uu aaminsanaa hindisaha Trump inuu yahay mid ka turjumaya aragtida Israa'iil laakiin haddana warbaahinta Israa'iil waxay leedahay arrintan looma arko inay tahay mid togan oo waxa loo arkaa mid taban bal inoo faahfaahay waxa loola jeedaa arrinkaasi ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uma arko jawaabta ka timid ururka Xamaas la xiriirta hindisaha uu soo jeediyay madaxweyne Trump sida loo sheegay janaalka 12aad oo dad ku dhow Netanyahu ay u warameen uma arkaan in ay arrin wanaagsan tahay jawaabta ka timid ururka Xamaas sida warbixinta lagu sheegay waxaa muuqata dadaalada madaxweynaha Mareykanka ee nabadeynta ah jawaabta laga bixiyay inay la dhacsanayn khiyaar kalena ma jiro janaalka 12aad ayaa ku waramaya dad ku dhow Netanyahu oo warar kooban siiyay in ra'iisul wasaaraha uu la yaabay Trump inuu si dhaqso ah u arko hadalka ka soo baxay ama jawaabta ka soo baxday ururka Xamaas in ay tahay mid wanaagsan inkastoo ay shuruud iyo hadal aan kala cadeyn ay soo saareen ururka Xamaas hindisiyo Mareykanka soo jeediyay ee la xiriira 29 September uu soo saaray saacadii wararka ayaa hoosta ka xariiqay Netanyahu isagoo ilaashanaya danihiisa siyaasadeed ayaa loo arkaa in uu tilaabadaasi asagoo cagajiid ah inuu madaxweynaha Mareykanka ku raacayo halkii uu si weyn u soo dhaweyn lahaa marka la fiiriyo xiriirka uu leeyahay wasiiradiisa xaq jirka ah ee ka soo horjeeda in dagaalka la soo afjaro warbixinta ayaa sidoo kale waxay hoosta ka xariiqaysaa xaqiiqada Trump in uu ku cadaadinayo Israa'iil in ay joojiyaan howlgallada military ee ka dhanka Gaza taasoo macnaheedu yahay Israa'iil in ay xiiseynayso sidii loo soo afjari lahaa heerka koowaad ee muhiimka ah ee heshiiskan kaasoo laga yaabo in 72 saacadood gudahood in maxaabiis lagu soo daayo Israa'iil ayaa waxay doonaysaa in dadka maxaabiista oo dhan in la soo daayo maxaa yeelay waxay rabtaa in ay weerarka dib u bilowdo ururka Xamaasna haddii ay isku daydo inay cagajiid ku sameyso heshiisyada janaalka 12aad ayaa waxa uu sheegayaa qiimeynta Israa'iil ee la xiriirta Xamaas in ay diidmo badan muuqato waxayna raadinayaan in loo damaanad qaado waxa ay qayb ka noqon doona heshiiska waxaana muuqata in waxa la xiriira dagaalka kadib inay wax ka ogaadaan rabaan kulan ayaa dhaqsal laga yeelan doonaa wareegan hordhaca ah ee maxaabiista siideynteeda iyo bixitaanka ciidamada Israa'iil waxaana dhici karta in geedi socodka nabadeynta uu noqdo mid aad u miraqsan waa gartay waayo isla arrintan haddaan ku socno maxamed qubarada Israa'iiliinta waxay u arkaan arrintan inay tahay arrin Netanyahu ka dhigaysa nin guul daraystay maxay ula jeedaan Israa'iil ayaa waxa uu noqday ceeble aanan mataqaanaa la wadan karaynin dadka cambaareynaya iyo dadka cadowga u ah iyo dadka xataa hadda saaxiibadiisii ku ugu waaweynaa oo Mareykanka la maldahayo oo uu ka mid yahay madaxweynaha Mareykanka iyo dowladda Mareykanka sida uu sheegayo Ori Goldberg oo la faguray arrimaha siyaasadda Israa'iil cid u soo baxaysa ma jirta ama qoranaysa Trump go'aankiisa uu u akhriyay Xamaas jawaabteeda inay tahay in ay nabad u helan yihiin uu u arko inay tilmaamayso in Netanyahu uu u arko arrintaasi mid gelinaysa xaraj uuna yahayna nin ceebla ah waxaana loo arkaa buu leeyahay hadallada Trump ee lagu yaqaano inuu ninkan uu yahay nin guul daraystay sida Goldenberg uu hadal ku dhigayo Israa'iil marnaba ma aynan filayn arrintan maxaa yeelay waxa ay aaminsanayd xasuuq aan dhammaanayn inay sii wado iyo isirtirfayn laakiin waxaanan hoosta laga xariiqayn ama laga xariiq karayn in ay dhinacyo kale oo ka baxsan hoggaanka ururka Xamaas wixii ka dambeeyay Oktoobar 7 2023 inay jiraan
waxayna u muuqataa faraqa u dhaxeeya sida ay Israa'iil oo la tacaamushay maraakiibtii u waday gargaarka hore Gaza iyo midkan hadda Samuud lagu magacaabo ayaa Israa'iil faralkeeda waxa uu noqonayaa wax caalamka oo dhan ku soo jeestay waxaana hoosta laga xariiqayaa ma jirta buu leeyahay Israa'iil in ay maanta u muuqato keligeed inay meel kasta ku tahay sida ay la tahay ninkan khabiirka ah labadii sano oo soo dhaafay saas ayay go'doonayd hase ahaatee Netanyahu ayaa laga yaabaa inuu xoogaa iyo diila ka helo qorshaha Trump sida uu ku doodayo laakiin haddii doorasho degdeg la qaado lagu baaqo Israa'iil waxaad moodaa in uu isku dayayo inuu ka faa'iideysto inuu noqdo nin xaalad dagaal culus galay isla markaasna nabad aan laga baaqsan karin oo dhib badana saxiixay sida uu Goldenberg hadal ku dhigayo waa gartay waayahay maxamed markaan aan dul istaagno hindisahan dad badan waxay leeyihiin Netanyahu wuxuu filayay muusan helin oo ahayd Xamaas inay gacmaha madaxa saarto hubka ay dhigto laakiin Xamaas mas'uul sare oo ka tirsan Musa Marzuq oo halkan aynu ka sii deynay waraysi la yeeshay wuxuu sheegay in ay ku xirayaan dhammaan sii deynta maxaabiista Israa'iil ciidanka inay kala baxdo gargaarka la soo fasaxo isla markaasna ay aqbali doonaan hindisahan si cad wuxuu u diiday aragtida ah Tony Blair inuu madax ka noqdo Mareykanka Gaza waan arkaynaa hadda arrinta meeshay marayso marka ma waxa la oran karaa Trump inuu dhinac iska dhigay Netanyahu oo tunka ku siday intaas mise culaysyo kale meel kale ka yimid su'aashaas waa su'aal xasaasi weey handadaad intii la handadi karo ururka Xamaas iyo dadka Falastiiniyiinta oo madaxweynaha Mareykanka uu isku dayi karo inuu u raadiyo guul Israa'iil markii ciidankeeda militariga uu fashilmay dhibaato badan iyo khasaare badan geysatay dambi isgelisay xasuuq iyo dambiyo waaweyn oo ka dhana bini'aadanimada gashay hadda waxaad moodaa inuu garwaaqsaday Trump oo uu samaystay fursad oo kaga baxo godkii uu kula jiray Israa'iil adduunkii oo dhan ayaa dhinac maray waxaad moodaa inuu xeeraystay ninkii martida u ahaa Netanyahuna uu tala geliyay wixii uu la jeexjeexay oo la qorayna madaxdii wadamada Carabta wixii la soo hordhigay waxaan ahayn ayay noqdeen hadda marka waxay noqotay si waji gabaxnimo uu oga soo kabto madaxweynaha Mareykanka laftirkiisa ayaa hadda waxaad moodaa in uu soo dhaweynayo Xamaas oo mowqifkeeda aan wax badan iska bedelin hase ahaatee u qaybisa saddex qaybood marka la fiiriyo qodobada la soo bandhigay waxay yiraahdeen qaybta la xiriirta maxaabiista la kala bedelanayo iyo ciidanka bixitaankiisa iyo gargaarka waxa weeye wada xaajood ayaa laga gelayaa farsamo iyo sidii loo meel marin lahaa ayaa laga wada xaajoonayaa qaybta labaad oo ayadana ay ka hadashay ayaa waxay tahay ciidamo ajnabi ah inay yimaadaan marinka Gaza oo ay maamulaan ayaa waxaa laga dhigay mid u taala dadka Falastiiniyiinta inay qaraarkeeda ayada qaataan tan kalena waxaa laga hadlay dowladda ay Falastiiniyiintu leeyihiin ma aha mid qaraarkeeda ay qaadanayaan oo kaliya ururka Xamaas waxaana muuqata Falastiiniyiinta oo dhan ayay u taalaa waxaad moodaa gudaha iyo dibaddaba ururka Xamaas in ay soo nooleynayaan qadiyadii Falastiiniyiinta oo ay geeyeen meeshii ugu sarreysay ay gaari kartay 150 dal ayaa taageeray Mareykanka haddii dagaalkan uu sii socon lahaa oo aanan la badbaadin lahayn Netanyahu hadda sidii isku dayay inuu badbaadiyo waxaa loo raadiyay hanjabaad iyo wax isdabamarin ayaa lagu marmarsiiyo waxaa la arkay inay Xamaas soo jeedo haddana waxaa muuqata in wada xaajood dhabar la geliyo marka laga gudbo bootada labada dhinacba madaxweynaha Mareykanka ma ahan markan kaliya inuu waqti kama dambaysa ururka Xamaas u qabanayo madaxa gacanta saara ka baxa marinka Gaza ayuu yiri hadda koor ana la wareegayo yiri marinka Gaza haddana aragtida ah inay cid kale dhulkan maamusho Xamaas meesha ayay ka saartay haddii si kale loo aqriyo Xamaas mowqifkeedii wax weyn iskama bedelin waxa moodaa erayo xeeleysi ah oo marmar sii siinaya dhanka Mareykanka inay xoogaa ka dhawaajisay macnaha waxa weeye haddii diidi lahayd xataa wax weyn oo isbedel lahaa lama arko Mareykanka hore ayuu agab iyo
taageero military u siinaya Israa'iil hadda laakiin waxa muuqata in loo raadinayay in wajiga mataqaanaa xoogaa loo dadbo madaxweynaha Mareykanka oo caalamka intiisa kale diblomaasi ahaan goodan oga marka macnaheedu waxay tahay in la fariisanayo sababtoo hadda waxaynu arkaynaa wufuud ku sii socota wadanka Masar magaalada Sharm el-Sheikh baa shirku ka bilaaban doona berri ergeyga Mareykanka Stephen Witkoff ay halkaa tigi doona marka Xamaas waxay tiri qodobada ha laga hadlo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Qatar iyo wasiirka arrimaha dibadda Masar labadoo waxay sheegeen in gorgortan uu jiro oo qodobo laga doodi doono macnaheedu marka waxay tahay duuduub Xamaas kuma aysan laqin 20 qodob laakiin waxay yiraahdeen wada xaajood baan diyaar u nahay ha laga wada hadlo arrintaas waa sax weeye dhowr goor oo hore ayaa xabad joojin la isla gaaray heshiiskan muddo dheer ayuu soo socday Israa'iil ayaa wax walba diidaneyd hadda waxaa moodaa Xamaas inay shax khatar la timid gorgortan xoog la ayaa bilaabanaya Xamaasna waxay ku sifeeyeen dadka yaqaana inay yihiin gorgortankooda dad culus wax tanaasul ma sameeyaan Israa'iilna handadaadeeda iyo hanjabaadeeda iyo militarigeedana waxa ay ka jabiyeen shawkadii sida carabta hadalka u dhigto ama irbadii waxaan ku yiraahdaa ay isku haleynaysay oo xoog ahayd dagaalka waan sii wadayaa iyo waa sii duqeynaya iyo waxbaan geenayaa cid asxaan loo sameeyay ma jirto Mareykan ha noqoto Israa'iil ha noqoto Xamaas asxaan uma sameyn danaha Xamaasna kama hadlayaan iyo danaha Falastiiniyiinta alla kubad baa la yiraahdo iyo sidee xeega loo xagtaa ilkana lagu badbaadiyaa ayaa socota gorgortankana sida khabirada Israa'iil hadal ku dhigayaan khaasirka weyn ama ninka koowaad ee khasaara Netanyahu ayuu noqonaya waayahay maxamed haddaynu intaas kaga baxno warar kale caalamka arrimaha Soomaaliya aan dib ugu laabanno qaraxii hadda waxa la sheegayaa inuu ka dhacay aaga godka Jilcow muddooyinkan magaalada Muqdisho ammaan bay ahayd laakiin maanta waxa la sheegay wadooyinka in la furay qaraxan qaraxii ku horeeyana madaxweynaha ayaa lagu sigay sida asiga qudhiisa uu sheegay maxay arrintan ka macno tahay muddo dheer ayaa waxaad moodaa qaraxyadii magaalada ka dhacayay inay hoos u dhaceen magaaladana ay aad ugu naaloonaysay deganaansho iyo nabad waxaa isi soo taray in siyaasadii xataa loo ilaalinayo magaalada inay dowladda isbedel ku samayso sababtoo ah nabadda isi soo taraysay waa dhab weeye weerarkan maanta dhacay weerarkii ka horreeyay wuxuu ahaa weerarka ceelgaabta ka dhacay oo adiga xustay weerarka kasii horreeyana wuxuu ahaa mid sanadkii hore bishii August ka dhacay xeebta Liida oo ay dad badan ku dhinteen marka la fiiriyo sanadkan qaraxyada dhacay marka la barbar dhigo sanadii ka horreeyay wuxuu ahaa sanadkii ugu qaraxyada yaraa waxaana muuqata in ammaanka xaqiisa aad moodayso magaalada in aad iyo aad ay u leedahay agabyo fara badan oo u suura geliyay in lala socdo cidda magaalada soo galaysa cidda ka baxaysa CCTV waxaan loo yaqaano ama kaamarooyinkan ku xiran jidgooyooyinka ayaa door ku leh baabuurta si joogta ah loo baaro waxa ayadana qayb ka ah in jidgooyooyinka la badiyay oo meelo badan oo magaalada inteeda badan ay jiraan askar qaar roonda qaar samaysta maxaan ku yiraahdaa jidgooyo socsocota qaar sameeya maxaan ku yiraahdaa la socoshada dhaqdhaqaaqa waxa ka socda goobaha isgoysyada ah waxaana muuqata in dadka magaalada Muqdisho ay in dhawaalaba ayna maqlin qaraxyo mararka qaarkood ayaa tijaabo lagu sameynayo garoonka aadan cadde agagaarkiisa dhowr tus military agab la tijaabinaya mooyaane qaraxyo la maqli jiray ma jiraan laakiin maanta waxaa dhacay qaraxan sida aad daawadayaasha aan u sheegnaba hadda waa tahay maxamed aad baad u mahadsan tahay daawadayaashuna ay mahadsan yihiin inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa caawa barnaamijka daawada si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu halkan kasoo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horey aadan ugu xirnayn hadda kusoo biir waa inoo barnaamijka xiga insha allah inta ka horeysa nabadgelyo